maxaa inta badan fashiliyey maktabadihii magaalooyinka koonfurta Soomaaliya laga furay bilowgii 2016 dalka waxaa ka bilowday in maktabada laga furo magaalooyin iyo degmooyinka qaar 6 sano kadib maktabadihii qaarkood ma furna haddaba fashilkaas maxaa ku keenay maktabadaha kaliya ma ahan meel buugaag lagu akhristo waa meel shaqooyin kale oo badan qabata waa meel inta buug laga soo qaato ugu badnaan hal toddobaad guriga lagu haysto kadibna loo soo celiyo waa meel ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare dhigata ay waxbarashadan ay ku adag tahay amaba xarfaha ay isaga dirsan yihiin ama kuwa education problemka qaba oo fahamkoodana uu hooseeyo ardaydaas ay maalmaha qaarkood inta yimaadaan waxna looga celiyo oo macallimiin halkaa joogta ay wax u faa'iideeyaan ama ardayda jaamacadaha dhamaysay ee kuliyadda educationka baranaysa ay ku practice gareeyaan ilmahana ay wax uga faa'iideeyaan ardayda jaamacadaha dhigtana lagu baro sida siifiyada loo qoro dadka waaweyn ee xilliga hore waxbartayna cilmiga kombiyuutarka aysanna wax badan ka fahamsaneen qof bara oo isticmaalka softwareka halkaa looga geeyo dadka magaaladana loogu sameeyo wacyigelin buugaagta ay maktabadahaasi dadka ugu deeqeen badankood faa'iido toosa uma ahan deegaanada ay ka furnaayeen maktabadaha dadka magaalada baahida ay qabaan buugaag ku saabsan in loo keeno ayay ahayd wiil arday ah cadaadana jooga ama boosaaso jooga buug George Orwell uu qoray oo uu kaga hadlayo socialism iyo dimuqraadiyad waxba kama gelin laakiin haddii loo geen lahaa buug English grammar ah oo exercise uu ka helayo mid Arabic ah mid juqraafi ah mid scientific ah ama buugaag sheekooyin oo uu luqadaha ku baran karo ama computer internet leh oo uu wax ka baaran karo haddii loo geen lahaa waa ay ficnaan lahayd waxaana uu ardayga heli lahaa wax saameyn toos ah ku leh maadaama markii hore maktabadahaasi loo wada furay qaab isdaba joog ah isla markaana isku dayasho ah badankood waa kuwa maanta keenay inay wada fashilmaan haddaba sooma habboona waxa weliba marka la samaynayo in lagu dabaqo baahida ay bulshada u qabaan noqdaanna waxa noloshooda saameyn toos ah ku leh